runtii dalkii wuxuu u baahan yahay dowladnimadiiya midada kala sugaynay ee 93kii halkan aad ka agaasiteen ka dhisteen maantana waan idinkula soo noqonnay qabta intaanay naga wada daadan inoogu gurmada soo ururiya waxaad maanta ku soo ururinaysaa wax kale maaha waa fartiina oo aad codka bixisaan sidaa dareenkiina aad u muujisaan ayaa intay daawanaysa iyo intay naga maqama waxaan leeyahay awdal si gaara xilaa isku saarto shanta gobole kaleba lahajecladii looga bartay iyagu ha muujiyaan halkaa intaasaa kaga baxay runtii waxaan halkan isla farin uga farayaa madaxweynaha maanta talada dalka ayaa axmed maxamuud siiraayo waxaa laga yaabaa maanta dadka inay ku adag tahay waxaa tartamaya siiraayo daahiryaale waxaa qabaa inay maanta tartamayaan waxa ay ku tartamayaanna waxay tahay daahiryaale maanta meeqaan buu somaliland soo gaarsiiyey meeqaanku soo gaarsiiyey wuxuu ahaa sidii wanaagsaneeda wuxuuda wareejiyey waa darajo maanta aan ka dhicin geeska afrika guud ahaanteed waxaa looga baahayay axmed maxamed code habeenkaa waxaan xusuustaa anu waxaan araggii daahir ka soo jeeday ee inta badan kirisasgelinayay runtii waxaa aad iyo aad naxdin u lahayd waxaa runtii aad iyo aad naxdin u lahayd habeenada ka mida oo saraakiishii xisbigoodu intay soo istaageen ay yidhahdeen doorashada waxbaa la xumeeyey runtii daahiryaalo oo ay ka muuqato lahajeclo oo aan runtii u soo diyaargaroobin tiifiyada ayaa habeenkii iyagoo dadku aad u wareeyaa soo fadhiistay waxaan ku badbadeeyey doorashada inay xor iyo xalaal dhacday waa muuqalan waa waxaa somaliland iyo geeska afrika hore uga dhicin madaxweynaha maanta talada dalka ayaa ninka uu la tartamaya ee bannaanka kusii sugaya waa daahiryaalo kaay amba geesi baad noqon axmed maxamed maxamuud siiraayo oo sidii daahir ayaad raggaa u kala saari amba hadday ila yari qodux gaadho waa dibaddaada mudane madaxweyne waxaan kugu dardaanayaa awdal baanu joognay wasiiradaadii siday u dhammaayeen awdal baynoo jeeday hoteelka rays bay nagula jiray waxaa lagu jiraana waa diiwaangelin ninka maanta diiwaangelinta wasiiradii ay xafiisyada uga soo kacayaan ee hay-adii shaqaaluhu xafiisyada uga soo kacayaan waxaan ku leeyahay madaxweyne karaamadaada maaha sharaftaada maaha cid haddaad u hiilinaysay labada nin ee musharciinta xisbiga ay kulmiyaa oo runtii aan aad u aqaano saaxiib lahayn labadaba waad u hiilisay runtii qaranku maanta wuxuu u baahan yahay ragga inoo tartamayay hor taagan cabdiraxmaan ilaahay baad dooray inagu waynu dooran waxaan middaa u leeyahay waa naqaanaa labada musharaxoo midina waa 70 jir leh cadada 17 jirka midina waxa weeye jir 6 jir dubada 6 jir kale midina caadifiyad buu leeyahay midna dubba fara badan buu leeyahay qaranku maanta uma baahna labadaa midda qaranku maanta wuxuu u baahan yahay mid deganaasho iyo dulqaad iyo isku wadis iyo subasalaax inuu hogaamiya runtii maanta kaynu u baahanay waa cabdiraxmaan sidaa waxaan u leeyahay waxaan ogahay saaxiibadayda xagga aan bari wali saaxiib ahaan jirnay in runtii sanadka ugu horeeya iyagoo muxuuha kala carooday midna u boorabay noo fadhiisan doono midna u berberay noo soo fadhiisan uma baahanin markaa taana halkaasaan kaga baxay guud ahaan waxaa magaalada waddanka ka jirta abaan aad u baahsan halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa guddida qaranka ee abaaraha runtii waxaan leeyahay annagoo xisbiga wadaniyaha noo dhiibina wixii ilaahay gacantiina dadka ay ku soo dhiibo iyagoo xisbiga kulmiyaana ha u dhiibina xukuumadna ha u dhiibina waxaa shaahid u soo ahaa labada aqal ee isku xiga ee gobolka salalku yaallay sanna dhaxabna la siinay midna laga talaabsanayay maaha wax qabta wax kaambeyn la geliye maaha wax ilaahay dartiisa